Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhwaatii soo dhawaada meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada channelkeena Somali Food Academy. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago wax yar oo bajiya ah oo aan kariyay ukun wata. Aad buu simple u yahay wuxuuna ka kooban yahay burka bajiyaha. Waxaan isticmaalay waxa waaye hal koob oo ah burka bajiyaha. Waxaan kaloon ku darayaa wax yar oo burka caadiga ah burkeena sawaayada iyo aan ka karsana mala waxa ah oo koota ah kootaan isticmaalaya. Waxaan kaloon rabaa inaan ku daro hal qaado oo ah garam masala, hal qaado yar haafkeed oo ah filfil. Waxaan kaloon rabaa inaan ku daro hal qaado yar oo ah huruudda shiidan. Waxaan kaloon ku darayaa hal qaado yar oo ah xawaash shiidan. Waa xawaaji shiidan spices kan hadda ka heshaan ii soo sheega insha Allah sidoo guriga loogu sameeyo ayaa idin la wadaagayaa. Waxaan kaloon ku daray hal qaado oo cusbo ah. Intaan ayaan isku walaaqayaa si fiican aan isku dhexgelinayaa spiceski iyo burkii. Waxaan ku daray biyo yar oo qiyaas ah ma ka badinaayay. Ayar baan rabaa biyahana ugu daray intaan marka hore ku qasayaa biyahan yarka ah. Haddaan arka inay ku filnayn waa kaasa wax kale haddana ku darayaa oo yar biyo yar. Step by step aan biyaha ugu daraa ayar aan ugu darayaa. Hal mar ma ku wada daray ma rabin inuu iga biyoobo. Waan soo walaaqay waan soo qasay. Burkii, spiceski, cusbadii, wax yarka aha biyaha aha aan ku qasay. Everything saasaan iskugu qasay si fiican isku dhexgaleen. Waa ready. Halkaana waxa iigu jira waa 3 xabo ukun aan soo karkariyay. Waa ukunta caadiga biyo caadi aan ku karkariyay. Waan boil gareeyay. Ukunta waxaan rabaa inaan u jaro midiiba 4 xabaan ka dhigayaa. Marka hore dhexdan ka jarayaa. Haddana jab kasta dhexdan ka sii jarayaa. Oo 2 jab baan ka dhigayaa. Marka halkii xabo oo ukuna waxay ii noqonaysaa 4 jab. Haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idmo. Xabadii koowaad waan jaray 4taas jab baan ka dhigay ujeedaan. Haddana waxaan jarayaa xabadii labaad. Sidoo kale waxaan ka dhigayaa 4 jab. Mana rabitan dhexdana iga daadato si kastay soft u tahay. Waxaan ku dadaalayaa ukunta dhexda iyo ukunta kore cadaanta iyo jaalaha inaysan kala bixin ay isku jiraan. Halkan waxa iigu jira waa burkii ii qasnaa waan diyaarsaday ukuntii aan soo qabtay. Waan ku ridayaa waan ku rool gareynaa waxaan rabaa ukunta burka inay meel kasta ka gaarto everywhere inuu gaaro burkaas saasaan ugu rool gareeyay ukuntii oo dhan waan ku gurayaa ukuntii aan jarjartay dhan hal mar ku guranayaa. Haddana waan ka gurayaa waxaan ku ridayaa saliid dabka ii saaran oo aan soo kululeeyay kuleyl karkara oo zaid u kulul ma ahan meel dhaxaad waaye haday zaid u kulushay uu iga gubanayaa waa meel dhaxaad saliidaas ayar ugu gurayaa. Markaan ukunta oo dhan ku wada guro waxaan sugayaa dhinaca hoose inay ka guduudato ka bacdi waan rogayaa hadda wad u jeedaan qaar waan soo rogay inta ugu dambaysa labada ugu dambaysa hadda rogayaa. Intii kale waan rogay waxaan diiday video-ga inaan idinku dheereeyo. Saliida zaid uma kulula saan hore idinku sheegay waa meel dhaxaad. Waa diyaar wad u jeedaan. Waan ka gurayaa hadeertaana. Waxaan kaloon rabaa inaan idin sheego ukuntu markay saliida gasho zaid waxay u dhahdaa bac ay dhahdaa way dilaacdaa saliida dhan ay guriga ku firdhinay korkaaga meel kasta iska ilaaliya marka insha Allah. Marka aragtid inay bislaatay dhaqso ka gura. Diyaar waaye saxankan aan ku soo ritay
haddana waxaan rabaa inaan idin tuso dhexdeeda say noqotay waan kala goynayaa waa ujeedaan burkii waa kor ukuntii waa dhexda very simple and tasty baaquligan waxaan ku shubtay raqay waaye aan kariyay iyo bisbaas raqay aan kariyay saasaan ugu qaadanayaa anaa idin testi garaynaa insha Allah very tasty waaye lagama sheekeyn karo waa simple waa macaan waa easy ilmaha waxaa ku siin kartaa tomato sauce laazima ahaan basbaaskaas tomato u isticmaali kartaa akhwaati waxaan filayaa inaad ka daawasho bogateen haddaad ka hesheen like saar haddaad ku cusub tahay channelka subscribe insha Allah waxyaabo badan waa soo socdaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh